markaleed ku soo noqod wanaagsan su'aasheena maanta qaybta hoosena gurigooda haddii aad garanaysid magaca rasmiga ah ee aktarkani loo yaqaano waxa ku bilaabanayaa filimkeena maanta maqaayad ku taalla Moscow askari ka tirsan ciidamada kaas oo lagu magacaabo Oleg waxa uu siigu jiraa shukaansi isagoo markaas la sheekaysanaya saaxiibkiisa Alena waxayna markaas wada qaadanayaan sheeko xamaasad leh lama ahan waxay joogaan maqaayad iyagoo markaas waqti ku qaadanaya balse waxaan aragnaa jaarashideesa leesar iyadoo markaas nadiifinaysa hawada sare waxaa magaaladii oo dhan ay noqotay mugdi wariyaha ayaa sheegay in dunida oo dhan marka laga reebo agagaarka Moscow ay mugdi noqotay qaybo ka mid ah Belarus iyo Ukraine iyo Finland waxay noqdeen mugdi dadka deegaanka degan ayaa si la yaab leh u daawanaya wararkaasi sida uu wariyaha u qeexay qaabka ay wax u jiraan meelaha uu mugdiga saad ugu daran yahay ayaa lagu joojiyay dadka inay halkaas tagaan inta laga ogaanayo sababta keentay mugdigaani iyo waxa uu salka ku hayo dadka waxay moodayaan inay la kulmi doonaan weerar argagixiso ah balse cid si dhab ah u og ma jirto waxa sababay in magaalada oo dhan ay mugdi gasho dowladda waxay dhowr diyaaradood u soo dirtay aagga oo mugdiga aad ugu badan yahay laakiin si qarsoodi ah ay u baaba'aan iyagoo markaas aanan wax fursad u haynin inay u soo diraan ciidan soo baara isla markiiba ay ciidankii soo degeenba askartii waxay la kulmeen run ahaantii cabsi aad u daran qof kasta oo dhinaca mugdiga aadeen isla goobtaasi ayuu ku dhintay askartiina waxaa soo wajahday halis badan mana ahayn dadka dhintay askar oo kaliya laakiin xayawaano sida kalluunka bisada iyo xitaa xayawaanada kale ayaa dhintay askartii halkaasi kormeeraysay ayaa waxaa lagu soo qaaday weerar balse qofkii weerarkaasi ku soo qaaday waa uu cararay kadib markii uu ka boodiyay dhismo dheer askarteena waxay soo qaadeen askarigii lagu soo weeraray meesha waxayna askartii ku soo laabteen gaadiidkii ay markii horeba ku yimaadeen warbaahinta TV-ga wariyaha ayaa sheegay in dowladda aysan waxba ka keenin baaristii ama howlgalkii ay sameeyeen ilaa hadda askarta kama warhayaan waxa sababay madowga iyo dhimashada dhammaan askartii horeba waxaa loo diyaariyey kooxo cilmi baarista kuwaas oo ku jiray nin lagu magacaabay Yuri inkastoo Yuri uu ka nasanayay shaqada si uu daryeelo hooyadiisa oo markaas waalneed isagoo aanan jeclayn inuu ka soo tago hooyadiisa ayuu ka soo tagay isagoo markaas rajeynaya in hooyadiisa caafimaad doonto maalintii xigtay qayb cusub oo askar ayaa saldhig yimid kuwaas ay tali u tahay Linta Marina waxayna shaaca ka qaaday warbixino baaritaan ah kuwaas ku saabsanaa meydadkii dhintay kuwaas oo ku dhintay aagii ay ka wadeen howlgalka waxayna leedahay sababta dhimashada ayaa ahayd sunta neurotoxin waxaana askarteena ka mid ahayd iyo dadkii dhintayba saameeyey suntaasi Oleg iyo saaxiibtiisa Alena waxay ku sugiin halkaasi iyagoo markaas isku diyaarinaya inay ka qayb noqdaan howlgalka xiga si kastaba haatee qorshooda waxaa xakad geliyey qeyladhaanta degdega ah raadeerka waxa uu muujinaya inay wax weyn ka soo socdaan kaynta askarteena waxay u diyaar garoobaan qaabkii ay uga hortagi lahaayeen iyagoo markaasi dhufays u galaya balse askartii waxay rasaas ku furan kaynta ay wax ka soo socdeen laakiin askartii ayaa dhammaantooda la baabiiyey subaxdii waxaa halkaasi yimid askartii kale balse waxa halkaani ka dhacay ayaa ahaa askartii waxaa soo weeraray bahalo aanan la garanaynin meesha ay ka yimaadeen waxayna dileen qaar badan oo ka mid ah askartii markaana magaalada nin lagu magacaabo Sasha ayaa waxa uu ku jira isbitaalka tan iyo markii mugdigii ugu dhacay Sasha wuxuu ku riyoonayaa riyo la yaab leh taasoo markuu arkay uu aad ugu naxay subaxdii xigtay isagoo naxsan ayuu soo kacay waxaana u yimid nin lagu magacaabo Shanya kaasoo sheegay in isaga saaxiibo yihiin waxa uu daaha ka qaaday in dad badan ay weli ku nool yihiin aagga mugdiga ah waxa uu u sheegay Sasha inay riyadiisa ahayd mid sax ah laakiin Shanya ma uusan sheegin sida uu ku gartay waxaasi oo dhan Sasha markuu arintaasi maqlay waa argagaxay waxa uu isla markiiba wacay waardiyaashii laakiin waxa isla markiiba halkaasi degdeg ku soo gaaray waardiyaashii Shanyana waxa uu iska dhigay in caadi ah oo ma uusan la hadlin isagoo markaas iska fiirinaya askartii dhanka saldhigga ciidamada kooxo badan oo askar ah ayaa u soo baxay meelo kala duwan waxaana u soo baxeen inay soo indheeyaan meelaha ay khatarta ka jirto dhowr saacadood kadib kooxdii ugu horeysay waxay soo gaareen goob adeed ku soo dhacday waxaan halkaasi joogay bini'aadamkii ka badbaadiyay halistay jirtay iyagoo markaasi mudaharaad ku soo qaaday askartii waxayna askartii halkaasi kala kulmeen dagaal iyo hagardaamo badan askartii Yuri iyo kooxdii labaadba ayaa waxaa la socda naag wariyaha taasoo ka tirsan warbaahinta waxaana lagu magacaabaa Olya waxayna gaareen magaalo nabadda taasoo aad u qurux badneed waxayna go'aansadeen inay halkaan xero ciidan ka dhistaan kadib markii ay indheeyaan dhanka kale Oleg ayaa la socda kooxdii saddexaad kuwaas oo galaya magaalo lagu magacaabo Kirov dhowr maalmood ayaa ka soo wareegatay askarteena waxay sii wadaan inay magaalooyinkii si indheeyaan maalintii kadib Sasha ayaa waxaa la kulmay nin lagu magacaabo Eid ninkaani waxa uu soo dhawaaday ninkii Sasha ahaa si uu muujiyo inuu yahay shisheeye ama jinni waxa uu firay wejigiisa u yaala sida aad u jeedid waxa uu rabaa inuu isticmaalo maskaxda iyo awoodda Sasha si uu soo helo dambiilaha ka dambeeyay inay magaaladan oo dhan mugdi noqoto cid kalena mahan ee waxa uu ahaa walaalkiisa Raa waxaana halkaas yimid guuti ciidana iyo askartii Marina isla markiiba waxay biskoolahooda ku qabteen ninkii Iidaha
waxa uu isla markiiba u ballan qaaday inuu u sharxi doono wax kasta uu ka garanayo madoobaadkani ku yimid magaaladooda. kadibna waxaa lagu soo xiray xabsigii. ninkii iida waxaa lagu bilaabay su'aalihii, waxa uuna muujiyey in isaga iyo dadkiisaba ay yihiin dad u dhashay meeraha ka jira cimilada kala duwan, iyagana weligooda ma duqoobaan mana dhintaan sababo dabiici ah awgooda. markii ay qorraxda meerahooda ka wareegtay waxay ahayd inay u guuraan meero kale kaasoo ka wanaagsan meerihii ay joogaan, weliba kaasoo qorrax leh. iid iyo walaalkiisa Raa waxay doorteen inay dhulka yimaadaan. markii ay dhulka yimaadeenna ayaa qorraxdiiba laga waayey. inta aysan dhulka imaanin isaga iyo walaalkiisa, jawiga dhulka waxa uu ahaa mid aad u degan, dadkana waxay ahaayeen kuwa nabad iyo barwaaqo ku noolaa. waxaana markasta iyaga awooddooda wiiqa ahraamta iyo sanamyada ay gaalada caabudaan allaha cadaabe. sidaas daraaddeed Raa iyo iid waxay isticmaaleen hubka maandooriyaha ah si ay ugu baabiyaan dadka iyagoo markaas isticmaalaya awoodda maandooriyaha. waxay ahayd tijaabadii ugu horreysay oo ay ku sameeyaan bini'aadamka si ay ugu dhigaan dhulka mid ku habboon shisheeyaha. laakiin hadda Raa waxa uu rabaa inuu tirtiro dhammaan bini'aadamka si isaga iyo dadkiisaba ay u lahaadaan dhulka. balse hadda waxaan fahnay in dhulka la soo weeraray iyo waxaani oo dhan waxa ka dambeeyay, waxayna sababeen inay magaalada mugdi ka dhigaan iyo inay dad badan dilaan si ay u fuliyaan qorshahooda tillaabadiisa xigta. iid iyo walaalkiisa sababta askarta u weerareen ayaa ahayd askarta iyaga ayay dabagal ku hayeen. kadibna Yuri ayaa waxa uu aadayaa gurigii hooyadiisa, waxayna u tageen gurigii hooyadiisa. balse waxaa halkaasi ka dhacay wax laga naxo kadib markii hooyadiisa jinni isku bedeshay iyadoo markaasi soo weerartay, laakiin waxay halkaasi ku toogteen hooyadiisa. markaana waxa uu iid leeyahay, markaani waa markii aad baabi'i lahaydeen, mara jiri doonta cid halkaani ku noolaan doonta. waxaana askartay weerar ku soo qaaday ninkii shisheeyaha oo jinniga ee Raa isagoo markaasi baabi'iyay askar badan. waxayna u muuqataa inuu khasaaraha askarta yahay mid sii badanaya. waxaana halkaani ka dhacay digaal faraha loogu gubtay. Marina iyo guutadeeda ciidamada waxay doonayaan inay diyaarad qaataan, balse markaani dhanka cirka ah waxaa ka yimid calaamado kala nuuca, taasoo keentay inuu markaani dagaalka ka sii daro. nasiib wanaag markaan iid wax uu diyaar u yahay inuu iyaga caawiyo si ay uga hortagaan walaalkiisa. waxa uuna u sheegay Marina waa ay heli karaan Raa haddii ay kaashadaan ninkii ahaa Sasha. Raa waxaa lagu joojin karaa arrintaasi oo keliya, waxayna xakameyn doonaan waxaana iga soo weeraraya. Marina markaana waxay doonaysaa iid iyo Sasha inay geyso halkii uu dagaalkii ka socday, waxayna soo qaateen diyaarad iyagoo soo baxay halka dagaalkii uu yahay mid ka sii daraya. kooxda Yuri ayaa si gaadma dhulka loogu soo weeraray, waxaana la dilay askartii Yuri la socotay. ugu dambeyntii laba kaliya ayaa ka hartay, waxaana haray isaga iyo Olio, waana inay raadiyaan koox kale haddii ay helayaan. sidaas daraaddeed waxay fuuleen baabuur waxayna u socdaan kooxdii Oleg. dhanka kale iid ayaa markaani Sasha wejiga gacanta ka saaray si uu diiradda u saaro sidii uu ku ogaan lahaa halka uu joogo walaalkiisa Raa. laakiin waxaa suuxay ninkii Sasha ahaa. markaana Marina waxay guutadeeda u soo jeedinaysaa inay si dhaqsa ugu baxaan magaaladani Kirov. waxaana halkaani joogay Yura iyo Olio iyagoo markaas raadinaya dad iyaga caawiya. sidoo kalena waxaa halkaani la jooga ninkii Oleg ahaa. iid iyo kooxdiisa iyo Marina ayaa isku diyaarinaya inay halkaani ka tagaan iyagoo markaasi aan waqti badan iska luminin. iid iyo asxaabtii kaleba waa ay soo dhaqaajeen iyagoo markaas ka soo baxay magaaladii Kirov. wayna soo baxeen sida ay u soo socdeen ayay shakiyeen iyagoo markaasi gawaaridii istaajiyey. waxa uuna iid doonaya inuu walaalkiisa ku hago halka ay ciidamada joogaan. isla markiiba gantaal ayaa ku soo dhacay, waxaana halkaas ka bilowday rasaas aanan caadi ahayn. askartiina waxay isku dayeen inay isku difaacaan inta karaankooda ah iyadoo markaas la burburiyay saldhiggii oo dhan, maadaama dagaalkii uu yahay rasaas kor ka imaanaysa oo keliya. Marina waa isxakameyn waysay iyadoo markaasi biskoolad ku qabatay ninkii iid ahaa, waxayna ku eedeysay inuu isaga baabi'iyey ciidankeeda. dhanka kale iid ayaa ku andacoonaya in tani ay tahay habka keliya ay ugu carari karaan Raa, isagoo markaasi aanan ka shakinin dhimashada askarta waxay ahayd lama huraan. subaxdii xigtay Yuri iyo Olio waxay heleen kooxdii Oleg iyo iid, waxayna ku farxeen inay helaan dadkoodii. waxaana sidoo kale la socotay Marina iyo kooxdeeda. askartiina waxa uu iid u sheegayaa wax walba. waqti badan ma hayaan, waayna soo dhaqaajeen iyagoo markaasi soo baxay. waxayna soo dhex socdeen magaalo aad cidlo u ahayd. kadibna dad ayaa ku soo yaacay kuwaasi oo dilya wixii ay arkaan, waxayna baabiyeen dadkii iyagoo markaasi soo weeraray ciidamadii hadda soo baxay. mid ayaaba dabaq iska soo tuuray isagoo markaasi bam isku xiray, waxa uuna qarxiyey bamkii. ciidamadiina waxay ku jiraan gudihii taangiga ay wateen, waxayna rasaas ku fureen dadkii ku sugnaa hortooda. askartii iyagoo weli xabadeynaya dadkii ayaa waxay soo fuuleen dabaq. taliyihii Oleg iyo askartiiba waxay go'aansadeen inay xoogaa ku nagaadaan qaybta hoose ee dhismaha. markaana waxaa dabaqii meesha ugu dambeysay yimid Yuri iyo iid, waxaana halkaasi joogay walaalkiisa Raa. Yura waxa uu soo weeraray ninkii Raa ahaa, balse Yuri ayaa la tuuray maxaa yeelay Raa waxa uu ahaa mid aad u awood badan. markaana waxa weerar ku soo qaaday iid, waxayna u dagaalamayaan si aanan caadi ahayn. dhanka kale taliyihii Oleg waxa uu la halgamayaa sidii uu isiga celin lahaa dadkii soo weeraray kadib markii askartiisa badankood ay dhinteen.
waxaana sargaalkii orog lagu soo weeraray gaari lagu soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana halkaasi ka qarxay qarax aanan caadi ahayn taasoo keentay in dhammaan dadkii ay soo wada galeen dabaqii balse dadka sidaana yeelanaya waxaa saameeyey suntii raa laakiin iid waxa uu helay jaanis uu ku dilay walaalkiisa raa waxaana bam u soo dhiibay ninkii yuuri ahaa waxa uuna halkaasi ku diliyaa walaalkiisa raa dhimashadii raa kadib iid ayaa waxa uu si buuxda gacanta ku dhigayaa dadkii bini'aadamka keliya ee hadda nool waa Yura iyo Oleg iyo Marina iyo Olya iyo Alena iyo Sasha ma dareemaan farxadda guusha iyagoo markaasi bilaayin meeda ay hareeraha ka daadsan yihiin inkastoo iyaga markaasi ay saad u cabsanayaan si kastaba haatee asxaabtii wixii dareemaya inuu ciid leeyahay ujeedo kale waxa uuna iid rabaa inuu noqdo mid halkaani ka taliya wax uuna doonayaa inuu helo awood buuxda wax uuna doonayaa inuu bini'aadamka oo dhan baabiyo wixii soo harana uu isaga cagta mariyo balse Marina ayaa markaani ku qabatay biskooladeeda kadib markii ay ogaatay ujeedadiisa oo dhan balse waxa midi ka taagay wiilkii Sasha waxa uu ka murugoonayaa mididii uu ka taagay gabadhii laakiin iid ayaa isku bedelay Oleg aabihiisa si uu jaha wareeriyo iyaga laakiin Sasha waxa uu arkay qorshihiisa waxa uuna ka soo tuuray dabqi iyagoo markaas dabqi ka soo wada dhacay hadda dadka kaliya ee nool waa Yuri iyo Oleg iyo Olya iyo Alena intaan oo kaliya ayaa soo hartay balse waxa hawada sare ka soo muuqday diixa gacmeed uu lahaa shisheeyaha waxa uuna diixa gacmeedkii soo degay dhulka isla markiiba waxa uu furay albaab waxayna go'aansadeen in ay naftooda hore u soo galaan si ay u soo fiiriyaan wax halkaas ku jira laakiin markii ay gudaha u soo galeen waxay arkeen sanduuqyo ay ka buuxaan shisheeye ama jini sidaad u taqaanaba waxaana isla markiiba isbedelay sanduuqyadii waxaana ka soo baxay caruur badan caruurtaani kalarkooda waxa uu ahaa mid cagaar ah laakiin asxaabtii kale waxay doonayaan inay caruurtaani dilaan balse caruurtaani shisheeyaha ama jinniga ma aysan jirin wax ay galabsadeen waxayna noqdeen kuwo aad u fara badan kuwaasoo weliba soo babaxaya balse waxaa halkaasi ku dhammaaday filimkii waxaana lagu magacaabaa filimkana sida aad u jeedidba The Blackout isagoo markaasi soo baxay sanadii 2019 maanta muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkani midka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino